daawade sheekhan ku hortaagan ma taqaana shakhsi nuuce waaye aniga ku sheegayo ha ka nixin hana la yaabin adduunkan wax walba waa la arkaa wax walba way dhacaan waxa ku jirnaa sanadka hijriga 1446 bisha sagaalaad 21 oo bil Ramadaan ah 10 dambe ee Laylatul Qadriga ku jirno waxa laga yaabaa ilaahay inuu qaarkana waafajinayo waxyaabo badan oo adduunkan joogo anaga aana ogeyn oo ilaahayna ogeysiinayo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أصحاب تسون وهذا ما أنت ما إذن وضع حن الدجال يدوم يدم بجسومالي ده ما أنت وح إذن وضع ور حساسي أو وربهين تعربت آد أوجل جلي هذا الهين وين خد الشيء وربهين تعربت أنت أنا نجود جلين أولا شيء أخو سلينا حبيب كينا رسول كينا سيد كينا نبي كينا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أصحاب تقاليق وحال الشيء إن كان شخص كان أركتان إنه صنعهن شخص عادي وحال غيابة إن هذا هراء مقلين أما هراء أوجين سيدا أنا قبل بقو أوجين أما هراء أنا أركن لكن وحال الشيء يا شخص كان أركتان وحال يري هذا إن كان محمد فوزي كركري. محمد فوزي كركر وشخص نوعي شخص كان محويه وشخص إلهي كرامت سي شخص كان وحال الشيء أو يعني ورباهين تعربت أن آد هذا الهيان إنه يهي ويلك أوه يهي رسول كان صوبنا صلواتنا عليك نبي محمد صلى الله عليه وسلم سدو أوه بالنقطة واحد اسمه الدين يساعدك إدابنا سدو أوه بالنقطة رسول كان صوبنا صلواتنا عليك نبي محمد ويلش يسوى وحبا ما يسن لين أي قوير إدنتين ilmihiisa kale waxba ma aysan dhalin ilaa Faadimo bint Rasuulullah oo dhashay Xasan iyo Xuseen. sida la wada og yahay asxaabta rasuulka way wada haajireen wadamo badan ilaa ay Afrika Carabaha kale ay u haajireen. ninkan wuxuu ka soo jeedaa ama jinsiyad uu ka haystaa wadanka Maghrib. sidoo kale inta waxa la sheegay in uu yahay wiilka uu aboobaha u yahay rasuulkeena soo banaa salawatu alayhi sidoo aboobo ugu noqday wuxuu aboobo ugu noqday dhanka gabadhiisa Faadimo bint Rasuulullah sallallahu alayhi wasallam waxa dhalay ama uu ka soo jeedaa faraca Xasan ibn Ali ibn Abi Talib oo wiilka ee dhashay gabadha rasuulkeena soo banaa salawatu alayhi Faadimo Sahra bint Rasuulullah. sheekhan waxa la yiraahdaa Maxamed Fawzi Karkari. warbaahinta carabta iyo boqortooyada dalka Sacuudi Carabiya waxa la soo xiriiray oo u sheegay dawladda Maghrib oo yani alashan shakhsigan oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam farciisa ka soo jeedo wadankiisa u soo socdo marka ugu horeeyay Sacuudi oo imaada ama Cimra oo imaada ee tahay in ay si weyn sharaf leh karaamo leh khaas ay u soo dhaweeyaan dawladda Sacuudi Carabiya waxa loo sheegay ninkan in la yiraahdo Maxamed Fawzi Karkari. dawladda Sacuudi Carabiya sida wada ognahay waa dawlad adag si been loogu dhaadhacsiiyana ay adag tahay haddana dawladda Sacuudi Carabiya boqortooyada waxa gacanta ku haayo nin adag oo la yiraahdo Maxamed bin Salman. maxamed bin Salman marka loo sheegay wuxuu baaritaan ku sameeyay buudaadka iyo kitaabkii oo yani qasriga yaalay wuxuu ogaaday Maxamed Fawzi Karkari yani Fawzi al-Karkari inay ka tirsan yihiin asxaabta rasuulka. waxa loogu soo dhaweeyay Sacuudi Carabiya si weyn oo qurux badan oo sharaf iyo karaamo leh. dawladda Sacuudi Carabiya waxay ku soo dhaweysay qasriga boqortooyada. sidoo kale inta waxa la sheegaya amlaaxiisa ama maxaladaha shakhsiyaadkiisa nuurka iyo yani dhaqankiisa iyo waxyaabaha ka muuqda inay yihiin dadkii hore saxaabiyiinta iyo asxaabta rasuulka iyo sida uu labisanayeen labiskiisa qof isla weyn ma ahan qof faan badan ma ahan. ninkan marka waxa la leeyahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam aboobo oo فرعي حسن بن علي أبي طالب وايه waxaa dhashay Faadimo bint Rasuulullah. sida la wada ogyahay dadka qaar waxay isweydiinayaan rasuulka sallallahu alayhi wasallam anaga wuxuu noogu tagay diin nasteexa diin naxariis badan laakiin dad nool oo noogu tagay maba aaminsaneen leeyahay xaqiiqda jira ilaahay dawladda Sacuudi Carabiya oo dawlad adag ku qanacday si weyn ugu soo dhaweysay sheekha محمد فوزي الكركري. شيخان حتى كلية ما أهن إنه رسول صلى الله عليه وسلم
awoobo oo u yahay ama faraci rasuulka uu yahay ama ilmihii rasuulka faracooga uu yahay oo Faadimo bint Rasuulallah dhasheeda uu kasoo jeedo waxaa la leeyahay ninkan waa nin karaamo Ilaahay siiyay xadaarad Ilaahay siiyay dadka xanuunsan daaweeyo oo eeshiyaanka aad ay u aaminsan yihiin dadka indhaha la dadka dhagaha la dadka xanuunsan oo Ilaahay biidnillaahi kariim uu ku daaweeyo idanka Ilaahay iyo Quraanka kariimka uu ku daaweeyo xataa sida la arki jiray social media asigoo dikrinayo asigoo maxaa la dhahaa asiga suufiyaashu kamid yahay horta xaqiiqda Ilaahay yaa og laakiin aad iyo aad loo hadalhaya adiga idaabanaya waxa dhihi kartaa waa been waa run waa isweydiinaysa sida aniga isku weydiinaya laakiin hadalkan waxa la leeyahay boqolkiiba boqol waa xaqiiqo rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee aboow u ah sheekhan dawladda maqrab oo la xiriirtay dawladda Sacuudi Carabiya u xaqiijisay inay u soo dhaweeyaan si wanaagsan wuxuu wataa waraaq warqadoo wataa dhalashadiisa meeshuu ka soo jeedo faraciisa asalkiisa fasalkiisa meeshay galaan inuu yahay faraci rasuulka sallallahu alayhi wasallam daawade sheekhan ku hortaagan ma taqaana shakhsi nuuce waaye aniga ku sheegayo ha ka nixin hana la yaabin adduunkan wax walba waa la arkaa wax walba way dhacaan waxa ku jirnaa sanadka hijriga 1446 bisha 9 21 oo bil Ramadaan ah tobanka dambe ee Laylatul Qadriga ku jirno waxa laga yaabaa Ilaahay inuu qaarkana waafajinayo waxyaabo badan oo adduunkan joogo anaga aana ogeyn oo Ilaahayna ogeysiinayo waxyaabo badan aan anaga horay u maqlin horay u arkin oo Ilaahayna tusaayo xaqiiqda الله أعلم إلهي عالم الغيب كو حقيقة لكن waxa laga yaabaa qaarka inuu Ilaahayna waafajinayo waxyaabo aan anaga ogeyn waxyaabo aan anaga horay u maqlin waxyaabo aan horay anaga u arkin inuu Ilaahay noo tusaayo ama Ilaahayna maqalsiinayo marka waxa la leeyahay sheekhan awoow waxa uu ah rasuulka sallallahu alayhi wasallam adduunka la jooga wadanka maqrab oo jinsiyad ka haysta waraaq dhalasho cadeen ah wuu wataa